السلام عليكم دماتين كسو دوادا برنامجكن gaarka ah oo aan si keedisa ugu nimidnay oo aan ku soo booqanay jaaliyada Marburg Biedenkopf Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf ee ka jirta dalka Jarmalka gaar ahaan gobolka Hessen magaalada Biedenkopf iyo Marburg waana mid ka mid ah jaaliyadaha ugu firfircoon ee ka jira dalka Jarmalka nasiib darro gudoomiyihii maanu helin waxaan halkan kula kulanay oo nagu soo dhaweeyay magaalada iyo xafiiska jaaliyadaba Daawud Cumar oo kamid ah xubnaha maamulka jaaliyada Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf marka waraysi yar oo kooban ayaan halkan kaga qaadi doonaa ku soo dhaw Daawud waan dhowhay walaalkayga Cabdiqani aad ayaan ku salaamo horta marka ugu horeysa adiga iyo kamaraystaaba waxaan horta idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad waxaan idinku soo dhaweynayaa magaalada Marburg gaar ahaan xafiiska jaaliyadu ay ku leedahay magaalada Marburg Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf waxaan ka xumahay gudoomiyahaygii oo ka maqan waqti xaadirkan goobta aan ku suganahay waxyaalo shaqo darteed uga maqan saa darteedna maxaan ku radaa kulli qofkii jooga unbaa wax soo dhaweeya aniga ayaa marka ahaan halka diyaar ku ahaa waxaan go'aansaday inaan anigu si khaas ah idin soo dhaweeyo maadaama uu gudoomiyihii meesha ka maqan kan Daawud haddii aan ku weydiino su'aal inteen leeg ayay jirtaa jaaliyadan Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf goorma la aasaasay iyo sababihii loo aasaasay haddaad noo sheegi karto jaaliyada Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf waxaa la aasaasay 2017 markii la aasaasayay waxaa ka horeysay jaaliyad ka horeysay oo la aasaasay 2015 markii dambe ayaa waxaa la go'aansaday in jaaliyad kale la aasaaso waxay noqotay nasiib jaaliyadan Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf waxaanan u aasaasnay si aan uga talino ciyaalkeena yaryar horumarkooda isdhexgalka bulshada sida khaasatan maxaan ku radaa Soomaalida iyo wadanka Jarmalka aan ku noolahay sidii ay dadku wada shaqayn u dhexmari lahayd inaan ka caawino qof kasta oo u baahan ama dhibaato ay ka haysato dhinaca waraaqaha ama dhinaca booliska ama dhinaca dhakhtarka ay dhibaato ka haysato inaan si gaar ah uga caawino muhiimadda ugu weynna waxay ahayd si aan ummadan Soomaaliyeed horumar ay ugu gaadho ayna una iloobin luqadeedii hooyo dalkana danaha ay ka leeyihiin ay ka fushadaan okay waxyaabaha aad qabataan oo waxyaabo badan bulshada Soomaalida un bay ku kooban tahay miya dad kale oo ajaanib oo caawisan baa jirta khaasatan ahaan aniga Daawud waxaan u qaabilsanahay isdhexgalka bulshada Soomaalida iyo Jarmalka iyo maxaan ku radaa wadamada kaleba waxaan la soo shaqeeyay ka hor intaanan maxaan ku radaa Soomaalische Gemeinschaft Marburg aanan xubin ka noqonin amba ka hor intaanan soo gelinba waxaan la soo shaqeeyay ururka loo yaqaano ASV isku tega midowga Afrika ee ardayda ah kaas oo muddo la shaqeynayay 2 sano ah kadibna maxaan ku radaa aniga oo khibrad buuxda u haysta ayaan waxaan soo dhaxgalay maxaan ku radaa Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biedenkopf kadibna khibradaydii ayaan halkii ka sii talaabo qaaday uma shaqeyno kaliya hatay Soomaalida cid kasta oo dhibaataysan oo nala soo wadaagtay dhibteeda waxaan u taaganahay in aan dhinaca dawladda waxaan uga qaban karnaa uga qabarno iyo dhinaca dhakhtareedba masha Allah si fiican gudoomiyaashii soo maray waxaan ka xasuustaa Shire iyo Samiir iyo Cali gudoomiye Cali oo hadda ah si wanaagsan oo nidaamsan oo kala dambeyn labay xilka ugu kala wareegeen masha Allah waa talaabo ku dayasho mudan Soomaalida gaar ahaan Jarmalka degan ama adduunyada kaleba ee jaaliyadaha leh inay si nidaamsan oo aanay carqalad ka iman oo aan dhibaato ka iman xilalka la isku wareejiyo oo qof walo imaada ama gudoomiye ka soo imaada oo hawsha halkiisa ka sii wato maxaad leedahay way ku suura gashay horta dadku ismaqal ayay wax ku wataan sida maxaan ku radaa anigoo aan fikradayda aan ogahay waxa maxaan ku radaa ismaqal iyo kala dambeyn ayaa ka jirta jaaliyadan xaqiiqatan ahaan marka maxaan ku radaa jaaliyad la yiraahdana waxa aad la hortagaysaa wadanka Jarmalka maxkamadda ayaad la hortagaysaa register paragraph ayaana ku qoran paragraphkaas cidii ku xadgudubtana waa qof maxaan ku radaa sharciga Jarmalka ku xadgudbay sidaad ogtahayba marka waxaan noogu suurtageliyay inaanan maxaan ku radaa cid walba أو إسقو شخصيتي سأنو واحد كدبن ودن كجرمال كشرعي سشرعي ويا لجال يدنا سدا درتد أيان واحد كدبن
maasha allah maasha allah si fiican. Waa jaaliyad ka mid ah jaaliyadaha ay Soomaalidu ma jirtaan dalka Jarmalka, ama haddii ay waxqabadkeega tahay ay ku soo hamiyaan oo la yidhaahdo magaaladaas Marburg jaaliyad wanaagsan baa ka jirta. Aad baanad uga dhex muuqataan. Imise qaybood oo shaqo aad haysaan, tusaale ahaan xagga caafimaadka, xagga integrationka iyo Soomaalida, imise qaybaha aad ka shaqaysaan ma caafimaadka, ma turjumaanida inaad wax u turjuntaan dadka Soomaalidaba, maxay bal waxyaabaha aad qabataan? Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biddenkopf marka la asaasiyey dadkii la asaasiyey horta aad bay u yaraayeen, laakiin hadda ahaan waa 1800 oo qof inta maxaan ku radaa jaaliyadda hoos timaado. Inta laakiin maxaan ku radaa xaqiiqatan ahaan jaaliyadda u heegan ummadeeda Soomaaliyeed u sare kacday aad ayay u yaryihiin. Haba ahaatee maxaan ku radaa waxaa la yidhi haddii uu quraanjadu haddii ay ururto wax kasta way jiidi kartaa. Marka maxaan ku radaa waxaan hadda ahaan aan u joognaa oon ka shaqaynaa dhinaca maxaan ku radaa ciyaalka yarar marka ay dhashaan si loogu dalba sharciga onan lawyer loo baahan ayay waxay u qabataa jaaliyadda Marburg si toos ah iyadoo ula xiriiraysa Bundesamt Migrationsflüchtlinge iyadoo si toos ah ula xiriiraysa ayay waxay u dalabtaa ciyaalka yarar sharciyada khaaska ah. waxaa kale ay dadka ka caawisaa waraaqadaha qoraalka dhinac walba ha noqdaan, dhinaca maxaan ku radaa Einbürgerung ha noqdaan sharciga weyn, amba maxaan ku radaa dhinaca kale ee sharciga deganaanshaha loo yaqaano, amba dhinaca kale oo qofka diidmada haysta si lawyer loogu qabto iyaduna hay u garab istaagto. waraaqadahaas oo dhan ayay ka caawisaa. waxaa kale ay ka caawisaa dadka Soomaalida iyo dadkii kale u soo baahdaba qoraalada loo dirayo dhinacyada dawladda ee kala duwan. qofku haddii uu project samaynayo waxa u baahan yahay marka ugu horeysa minijob inuu la yimaado. minijob centraalkana way dhib badan tahay maxaan ku radaa registerkeyga Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biddenkopf khibrad buuxda ayay u leedahay, iyada ayaana maxaan ku radaa dad badan ka caawisa. waqti xaadirkan waxa aan si toos ah aan uga caawinay maxaan ku radaa qolo la yidhaahdo Center Martins oo ku taala maxaan ku radaa Marburg kuna taala kana shaqaysa maxaan ku radaa qaybta Richtberg oo ah kristanka kaliyaatay ah, laakiin qofku ama kristan ahaado ama muslim ahaado qofkii ku soo baahda gacan kaaga baahda gacan ayaan ka siinaa. Inaan soo booqdo jaaliyadda Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biddenkopf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. horena igumay suuro gelin inaan waraysi ka qaado gudoomiyaha. insha Allah mar kale baan gudoomiyaha soo booqan doonaa, isagana waraysigiisa inoo soo gudbin doonaa. hal mar waxaan ka wada hadalnay mise laba mar gudoomiyihii hore Samiir oo aan waqti uun isku weynay, waxoogaa waqtigu noo saamixi waayay inaan waraysi ka qaado oo waxoogaa waqti la-aan dhacday. maanta alxamdulillah waan ku faraxsanahay inaan soo booqdo oon waraysigan halkan kaaga qaado. Daawud Cumar, adigu maxaad u qaabilsan tahay jaaliyadda Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biddenkopf? sideena xilalku kala yihiin? gudoomiye waad leedihiin, gudoomiye ku-xigeen waad leedihiin, maxay kale qaab noocee maamulkiinu u dhisan yahay si ay uga faa'iidaystaan dadyaga kale ee dalka Jarmalka ee raba inay jaaliyada samaystaan? horta jaaliyadda Soomaalische Gemeinschaft Marburg Biddenkopf aniga tiitalkayga haddii aan ka hadlo waxaan u qaabilsanahay sida aan horeyba uga dhawaajiyey isdhexgalka bulshada qaybta loo yaqaano integration amba integration ka loo yaqaano luqadda Ingiriiskana. qaybtaas integrationka kaliyaatay Soomaalida kaliyaatay uma qaabilsanay, waxaan u qaabilsanahay si aan maxaan ku radaa dadka Soomaalida iyo dadka Jarmalka aan isku dhexgeliyo, aan u tuso dhaqanka Soomaaliyeed. waxa kale aan magaalada Marburg aan uga tirsanahay maxaan ku radaa baarlamaanka Marburg ayaa waxaa la ii doortay qof ah ku-xigeen sanadkii 2022 baarlamaanka Marburg aniga oo u tartamay maxaan ku radaa golaha deegaanka magaalada Marburg. golaha deegaanka magaalada Marburg meeshii aan rabay waan ka iman waayey, laakiin golaha maxaan ku radaa baarlamaanka ayaan meel fiican ka soo galay. kadibna maxaan ku radaa anigoo labada xilba isku haya waxaan anigu u qaabilsanahay isdhexgalka bulshada. wixii aan ka bilaabno waxay ahayd si aan u baro ummadan Soomaali la yidhaahda inay kubad ciyaari karto, dadkana istoosi karto. sidee xilalku kala yihiin
xilalku magaalada Marlborough khaasatan ahaan jaaliyad marka la yiraahdo waxay ka kooban yihiin maxaan ku radaa 7 qofood marka ugu horeysa laakiin xilalka waad badin kartaa macnaha waa dawlad yar oo la xisaabtami karta hadba meesha ay ka dhisan tahay la xisaabtami karta waxay leedahay maxaan ku radaa gudoomiye oo madaxweynaha gudoomiye ku xigeen ayay leedahay maxaan ku radaa waxay leedahay qaybta kaasiyerka ayay leedahay lacagaha ururiya waxay leedahay maxaan ku radaa qof u qaabilsan isdhexgalka bulshada qof waxa jira maxaan ku radaa u qaabilsan jaaliyada inuu codkayga meel dheer gaaro dhinac walba ha noqoto dhinac Soomaaliyeed ha noqoto dhinac Ajnabi ha noqoto dhinac Jarmal ha noqoto dhinac kasta codka Soomaalida inuu meel dheer jaaliyada gaarsiiyo dad waxa jira maxaan ku radaa guddi ah oo u qaabilsan talaabo kasta oo la fulinayo inay fuliyaan xubnahaas oo dhan ayaa ku jira macnaha jaaliyad marka la yiraahdo waa dawlad yar oo dhisan oo cid walba la xisaabtami karta okay ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka ku cusub ama raba inay jaaliyada samaystaan horta dhalinyartu bilowga ugu horeeya dhalinyarta wadanka ku cusub ee Soomaaliyeed waxaan u soo jeedin lahaa waxa ugu horeeya macnaha meel lagu meel maraa waa luqad waxaan u aqaanaa guri markaad furaysid waxaad u baahan tahay muftax ayaad u baahan tahay muftaxna waa luqada aad wadan ku soo galaysid wadanka hadii aad luqadiisa taqaanid waxa ku fududaanaya inaad dadkan isdhexgal la samaysid inaad shaqaysatid iyo inaad sharkooga iska ilaalisid intaba way ku fududaanaysaa taas horta waa midda ugu horeysa midda labaad jaaliyad ahaan aan kula dardaarmayno dadka kale ee hadda ahaan jaaliyadaha samayn doona waxa weeyaan maxaan ku radaa inay marka ugu horeysa iyaga ka go'an tahay oo isleeyihiin macnaha jaaliyad baan samaynaynaa keli hata afkun lagama sameeyo ay leeyihiin hadaf beritoole macnaha jaaliyadii way aasaasantay waxaad u gudbiseen maxaan ku radaa maxkamadii ay kaaga soo baxday markaas ayay tahay jaaliyad dhammaystiran maxkamadda markay kaaga soo baxdo kadib ayay waxa kugu adkaan doona sidii aad u fulin lahayd haddii aanad marka hore hadaf lahayn marka hore waa inaad hadaf lahaatid kuu diyaarsanaadaan qorshahan waa inaan sanadkan fuliyo sanadka ku xigana waa inaan halkaas aan qofkii igala wareegi lahaa ku gaarsiiyo waad mahadsantahay Daawud Cumar kaasina waxaa Daawud Cumar oo kamid ah maamulka Somali Gemeinschaft Marburg Biedenkopf intaynu ku kulmi doono waraysi kan oo kale ah ama aynu mar labaad kusoo booqan doono jaaliyada Somali Gemeinschaft Marburg Biedenkopf waraysigeeni koobnaa iyo booqashadeeni koobneed intaas ay ku eg tahay aad iyo aad baan ku salaamay wa alaykum asalaam wa rahmatullahi